diiq noolaa 18 bilood isagoo bilaa madax ah ama aan lahayn wax kur ah. Ra'iisul wasaare la waayay isagoo dabaal ku jira oo aan la helin meel uu jaani cirib dhigay, iyo gabadhii wariyaha ahayd ay qaawanaanta ku duubi jirtay barnaamijyada TV-ga. Waxaa inta badan dunida ka dhaca dhacdooyin la yaab leh oo mucjiso ah, kuwaas oo aan marna la rumaysan karin. Haddaba ku soo dhawow dhacdooyinka dhacay laakiin ay adag tahay in la rumaysto. Ka hor inta aanu gudagelin barnaamijka, like saar page-ka oo soo booqo dhigaaladeenii hore. Waxaad ka heli doontaa page-ka Somali Brothers waxyaabo badan oo ku qanciya. Waad mahadsantahay. Harold Edward Holt oo soo noqday ra'iisul wasaarihii dalka Australia sanadihii 1966 ilaa 1967 ayaa la waayay mar qura isagoo sanad xilka hayay, xilli uu ku dabaalanayay xeebaha. ilaa iyo maantana lama helin xataa meydkiisii meel uu jaani cirib dhigay. Lambarka labaad, ka hor dagaalkii labaad ee adduunka, ciidamada badda ee dalka Romania looma soo xiri jirin tababarka marka ay dhammaystaan ilaa hal qof oo guutada ka mid ah uu dhinto isagoo ku jira tababarka. Haddii aan qof dhiman, guutadaas looma soo xiri jirin tababarka ilaa iyo inta laga helayo askari ka mid ah kuwa tababarka ku jira inuu dhinto. Waxaana taas ka sii layaab badnayd iyagoo og ay ciidanku qoran jireen geesinimadooda daraaddeed. Laakiinse falkaas ayaa la joojiyey waqti kadib. Lambarka saddexaad, waxaa jiray diiq ama digaag loogu magac daray Miracle Mike, kaasoo ay dadka muslimiinta aaminsanaayeen inuu ahaa mucjiso, halka dadka diimaha kala haystaa ay buugaagtooda layaabka ku dareen. diiqan ayaa noolaa 18 bilood isagoo aan lahayn wax madax ah gebi ahaanba. waxa uuna noolaa diigaas intii u dhaxaysay 1945 ilaa 1947 isagoo aan lahayn wax madax ah. waxaana diiqaas lahaan jiray in lagu magacaabi jiray Lloyd Olsen. Lambarka afraad, wariye lagu magacaabo Enki Brakac oo ah haweeney 22 jir ah ee TV laga leeyahay dalka Albania wararka ku tabisay iyadoo aan wax dhar ah wadanin, loona jeedo awradeeda. kolkii hore bilowga, wariyaha ayaa wadatay shaati kaas oo guluusaha u furnaa oo ugu dambeyn ay iska saartay gebi ahaanba, waxayna warka ku tabisay iyadoo qaawan. Lambarka shanaad, wiilkii lagu magacaabi jiray Prince Charles iyo xaaskiisii Diana oo ka dhashay qoys boqortooyo ah ayaa arooskoodu ku baxay lacag dhan $110 milyan, waana arooskii ugu lacagta badnaa abid ee adduunka qof bini'aadam ah dhigto. ilaa maantana ma jiro qof iskoorkaas jebiyey. fadlan inta aadan ka bixin like saar page-keenna si aad u hesho warbixinadan oo kale. share dheh, soo qor qodobkii kuugu soo jiidasho badnaa. waad mahadsantahay.